soo dhawaada daawadayaal caawa iyo waliba sidoo kale Fafi TV dhacdooyinka dalka iyo dibadda 24 saac u dambeeyay dhacdooyinka laga soo calaamadeeyay ayaan rabaa in halkan idin kula wadaago madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo waliba sidoo kale Ilhan Umar oo dagaalkooda sii xoogeystay iyagoona saxaafadda hadallo kulkul isku marinayaan sidoo kale waxaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa maxay tahay sababta dib looga dhigay furitaanka baarlamaanka 11aad sidoo kale muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mudane Madaale oo markaasi buug wax qabadkiisa lagu soo bandhigay gudaha caasimadda Muqdisho xalay lagu soo bandhigay qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal barnaamijkeena caawa iyo waliba sidoo kale Fafi TV dalka dibadda iyo dhacdooyinkiisaba soo dhawaada marka hore muuqaalkan la gareysiin shargaray saaxiibada la wadaag si maaragtay meelo fogfog uu markaasi muuqaalkan u gaaro hagaag aynu ku bilaawno waxaa si aad u xoogeysanaya khilaafka u dhaxeeyo Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed kana tirsan xildhibaanadka dalka Mareykanka iyo waliba sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee Donald Trump arinkood ayaana si weyn u xoogeystay iyagoona baraha bulshada ay isku marinayaan hadallo iyo waliba sidoo kale hadallo xanafa iyadoona midba midka kale u jawaabaya Ilhan Umar ayaana maanta ka jawaabtay hadalkii uu markaasi hore u sheegay madaxweyne Trump tanina waxay markaasi cawaaqib xumo ay ku noqon doontaa Donald Trump oo markaasi gabadhan Soomaaliyeed uu markaasi u babaxsanayo isagoona uu rabo inuu maaragtay uu rido balse laakiin ay ka guuleysatay guuldaradana qaraar ay dhansiisay Ilhan Umar iyo waliba sidoo kale madaxweyne Trump ayaana sii xoogeysanaya murunkooda ku aadan maaragtay xilkan ay markaasi isku hayaan mucaaradka u dhaxeeyo Ilhan Umar iyo waliba sidoo kale xildhibaan aqal sare murunka u dhaxeeyo Ilhan Umar iyo waliba sidoo kale xildhibaanka aqalka Congress-ka ee Mareykanka iyo waliba sidoo kale madaxweynaha hadda markaasi xilka haya ee Donald Trump ayaana markaasi gaaray meel sare kadib muddo dheer oo markaa labadan markaasi shakhsi weerarada markaasi dhanka saxaafadda isku marsiinayeen kooxda taageersan madaxweynaha Donald Trump ayaana markaasi baarlamaanka mooshin markaasi ka geeyay Ilhan Umar waxaana markaasi lagu doodayay maalintii Arbacada la soo dhaafay halka ay markaasi cod ahaan ay u qaadatay Ilhan Umar ay ku guuleysatay 214 cod ay la timaaday halka madaxweynaha Donald Trump isna uu markaa la yimaaday 213 cod sidaasina waxa hal cod markaasi guusha ku raacday Ilhan Umar oo kamid ah xildhibaanad markaasi ka tirsan baarlamaanka Donald Trump ayaana markaasi ka careysiisay guuldaradiisa aqalka hoose ka soo gaartay ayaana markaasi dalka iyo dadka Soomaaliyeedba uu aflagaadiyay isagoona Twitter-ka iyo baraha bulshada uu markaasi Soomaalida uu ku soo aflagaadiyay isagoona markaasi Ilhan Umar ay tahay gabar ku fashilantay dal ka soo jeedo dal isaga markaasi musuqmaasuq iyo waliba sidoo kale dal aan maaragtay isaga dhibaatooyin haysato inay ka soo jeedo iyo waliba sidoo kale waxa uu ku tilmaamay inay tahay qaxooti sidoo kalena waxa uu markaasi uu ijaafaystay dhammaan ummadda Soomaaliyeed isagoona markaasi waxaysan ahayn uu ku tilmaamay madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump tanina waxay markaasi kamid tahay guuldarada qaraar ee uu dhimiyay madaxweynaha dalkaasi markaasi Mareykanka ee Donald Trump dhanka kalena magaalada Muqdisho xalay waxa lagu soo bandhigay buug markaasi lagu sheegayo ama markaasi lagu bayaaninayo waxqabadka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mudane Yusuf Jimcaale Madaale isagoona markaasi boqolaal shacab ay ka soo qayb galeen goobta munaasabada ay ka dhacisay tanina waxay fariin cad u tahay maamulka hadda talada haya Mugabe iyo waliba sidoo kale gudoomiye Madaale ayaa raba inuu markiisa saddexaad oo xilkan uu ka qabto gudaha caasimadda isagoona markaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa caasimadda uu noqdo Mugabe ayaana sidaasi sameeyay horey Madaale ayaa 2 jeer oo xilkan gobolka Banaadir u soo qabtay isagoona Mugabe markiisa labaad uu hadda uu talada ku fadhiyo magaalada Muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug markaasi loogu magacaabo Madaale iyo waliba sidoo kale Muqdisho kaas oo ay qoreen dhalinyarada markaasi aqoon-yahanada ee Soomaaliyeed buuggan ayaana waxa markaasi ka sheekeynaya waxqabadka muddada uu Yusuf Jimcaale Madaale uu kamid ahaa gudoomiyihii soo maray maamulka gobolka Banaadir muddo waliba 2 jeer buuggan waxa markaasi lagu xuseeyay waxqabadkii uu sameeyay muddada
وشيخ يوسف جمعالي مدالي labada muddo xileed uu markaasi uu kasoo xukumay gobolka Banaadir munaasabadan ayaana lagu qabtay hoolka weyn ee shirarka ee Sahal International ayaana waxa markaasi soo buux dhaafiyay dad doonayay buugan inay arkaan iyo kuwa kale oo ay rabaan inay u iibsadaan waxaana qayb weyn ka ahaa xilbaano sanataro wasiiro gudoomiyiin degmooyin iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin xilal sare ka soo qabtay dalka kuwaas oo meesha ka qoriyay waxqabadka ama ku qiray waxqabadka gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Madaale tanina waxay markaasi ay ka dhigan tahay in ay sii wadaan xoojinta iyo waliba sidoo kale waxqabadka gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ugu dambeyntiina maxay tahay sababta uu markaasi dib uga dhacay furitaanka baarlamaanka 11aad kalfadhigiisii 7aad ayaana dib u dhacay kadib markii daruufooyin iyo waliba sidoo kale waxyaabo yaryar iska jireen ayuuna u baaqday furitaanka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kalfadhigiisii 7aad ayaa dib u dhacay dib u dhac xooggan ku yimaaday furitaanka baarlamaanka lagu markaasi lagu balansanaa inuu dhaco 20 September 2025 kulankan waa kulanka koowaad ee kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka kulankan oo ahaa kulanka wadajir markaasi labada aqal ee sharci ahaan aqalka sare iyo waliba sidoo kale aqalka markaasi loo furayo si markaasi waafaqsan labada markaasi aqal waxaana markaasi furayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo madaxweynaha uu ku cudur daartay in uu markaasi kalfadhigan uu furo iyadoo markaasi duruufo iyo waliba sidoo kale caqabado yar ay taagan tahay ayuu madaxweynaha u baajiyay hadda waxa loo beddelsan yahay 20 waa markaasi uu dhici doona 29 September ee 2025 bishan gabagabadeeda aynu markii aynu gaarno kalfadhigan ayaana si rasmi ah markaasi uga furmi doona gudaha caasimadda iyadoo markaasi labada markaasi baarlamaan oo si markaasi dahsoon loo furi doono daawadayaal haddii aad halkan la soo gaartay waxaa qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis kaaga codsanayaa inaad maartay YouTube-ka soo subscribe gareys page-kana soo like garay oo ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan la sii share gareey saaxiibayaal ma mahadsantiin